waa hagaag daawadayaal waxa la soo gaaray xubintii sportiska iyo Socod Cawiif mahadsanid Nasra وعن داوديال كسو دوادا xubinta ciyaaraha ee TV-ga wacyi waxaana idin la socodsiinaysaa anigoo Socod Cawiif halyeygii hore ee kooxda Real Madrid Roberto Carlos ayaa saadaaliyay in xidiga kooxdaas ee Eden Hazard uu noqon doono xidiga dunida ugu wanaagsan kadib Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo Hazard ayaa ku biiray kooxda Real Madrid xagaagii isaga oo markaa kaga soo biiray dhinaca kooxda England ee Chelsea laakiin waxa uu markaasi ku dhibaatoonaya dhaawacyo isaga oo aan kulamo badan u ciyaarin kooxda Roberto Carlos oo la hadlaya markaasi goal.com ayaa yiri Hazard waa xidig cajiib ah waqti kadib wuxuu noqon doonaa xidiga ugu fiican dunida waxa uu leeyahay tayo uu ku noqon karo waana uu markaasi wuxuuna arinta muujin doonaa markuu helo fursad buuxa oo bila dhaawacaya Eden Hazard ayaa Real Madrid yimi isagoo 7 sano ku soo qaatay kooxda Chelsea oo kala guuleystay koob badan oo ay ka mid yihiin Premier League iyo Europe League xidiga Eden Hazard ayaa kaliya dhaliyay hal gool mid kale caawiyay markaa ka noqday tan ilaa markii uu ku soo biiray kooxda Real Madrid macallinkii hore ee kooxda Manchester United Louis van Gaal ayaa qiimeeyay kooxda Chelsea laacibka ay kala soo wareegeen kooxda Ajax ee Hakim Ziyech wuxuuna aaminsan yahay in wax badan uu Hakim oo ku soo kordhi doono kooxda Chelsea Louis van Gaal ayaa sheegay in markaasi ay Chelsea la soo saxiixatay xidiga Hakim Ziyech isagoo amaanay horumarka uu xidiga reer Morocco ka sameeyay kooxda Ajax Chelsea ayaa 36.6 milyan oo euro kula soo wareegtay xidiga 26 sano jirka bishii Febraayo isagoo Stamford Bridge imaan doono dhamaadka xilli ciyaareedkan Ziyech ayaa markaasi ahaa xidigii ugu fiicnaa kooxda Ajax labadii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay isagoo oo dhaliyay 29 gool caawiyana ka noqday 45 kale Frank Lampard ayaa u dhaqaaqay Ziyech si uu ugu xoojiyo marka kooxdiisa xilli ciyaareedka daawadayaal intaas ayaa ku soo koobaya xubinta ciyaaraha aan dib idin ku celiyo warkii iyo Nasra mahadsanid Socod Cawiif waana geynta warkii aad kala socoteen telefishinka wacyi xaruntiisa dhexe ee magaalada Garowe intaan warkan warka ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo